inaan ka hadlo shirkadaha waxa waaweyn ee ka taabagalay dalkeenu ma qoys baa leh ma qaran baa leh mise qabiil baa leh waxaan kaloo ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaaho saamaynta ka dhalan karta hawshan maanta taagan ee dhacday haddii ay tahay dhinaca dawladda iyo hadday tahay dhinaca shicibkaba saamaynta ay reebi karto haddaan iska bilowdo waxaan ku soo dhowaanayaa inaan warbixin yar horta ka bixiyo Axmed Cismaan Geelle iyo qadiyadda Jabuuti dhex taalla inaan bulsho weynta u iftiimiyo waxay warbixinayaan inaan ugu iftiimiyo Axmed Cismaan Geelle waa hantiile runtii magac dheer iyo muddo dheerba waxa weeyaan ku lahaa bulshada dhexdeeda hantidiisa ugu faraha badan lina waxay taalay Jabuuti marka laga tago dalalka kale halka uu ahayd rugta ee hantidiisu ay ka asaasantay waxay ahayd Jabuuti waxa uu ku lahaa 10 shirkadood hantida marka 10 ka shirkadood oo kullayba magacyadooda iyo dhiteeshooda dib wixii looga baahdaan dib ka faahfaahin doono waxa marka dhacday 10 shirkadoodba inay la wareegtay Jabuuti naftiisa ayuu kala soo baxsaday waxaanu yimi dalkii uu dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliland hantida waxa weeyaan laga dhacay 128 milyan ayuu qiimaheedu ahaa hantida bangiga uu ka qaatay 20 milyan bay ahayd waxa kale oo dhacday oo jirtay hantida looga haystayna gurigiisa 16 milyan iyo qayb kamid ah hantidiisii ma guurtada ahayd oo 9 milyan 25 milyan baa banka u taalay rahan ahaan ugu taalay halka xaaladdu marka marayso waxa la dhacay hantidii dhammaan u wada lahaa hawsha imika la wadaa gurigiisii iyo hantidii 25 bilyan ku qiimaysnayd waxay u dirsadeen looyaro iyo maxkamadahooda waxaanay ku qiimaysteen 14 milyan oo kaliya milyan markay u soo qaadeen hantidii uu ka qaatay oo 20 milyan ahayd 6 milyan bay maanta waaran u soo jareen waxaanay u soo gudbiyeen maxkamadaheena xeer ilaalinta cadaaladda iyo waxa weeyaan arimaha muhiimaddu markay taas warbixin tahay waa arki kartaan ama waa dareemi kartaan arintani arrin Jabuuti ka socota ma aha waxaanay geesi malafsi bartay iyo doqon milantay dhexdooda miidaama ka dhacdaa baan leeyahay dhexdooda geesi malafsi bartay oo rag hore ku bartay oo caruurtii mujaahidiintu dhashay ilma Maxamuud Daahir u xidhan yihiin ilma Maxamuud Daahir oo mujaahid aabahood ahaa uu ku dhintay dagaalkii intuu maxkamad soo joojiyay oo uu dhaariyay haddana jeelka u diray Soomaalidu waxay odhan jirtay doqonta usha agteeda ku dhufo hadday garan weydana gogga u geli Axmed Cismaan Geelle isagaa dhacan daarihiisii iyo maalkiisii iyo hantidiisii tii u dood lahayd weeye tani waa muwaadin iskuulka anigu wuxuu ka baxay elementary iyo intermediate-kiiba waxaanu ka hadlaynaa hodheelka Aydiid iskuulka General Daawud ee ku xiga ayuu elementary iyo intermediate-kiiba ka baxay isku age baanu ahayn dee ama taariikhdii jiri jirtay baa jiri oo waxay noqon doontaa walee suuboy
nin surwaaliya laaran kaa socay waxaanu leenahay Jabuuti nugumay soo duulin halkan noogumana iman karto hantidayadii bay haysataa hantidayadii ayay haysataa oo ku maqan maalka yaga iyo inanka yaga iyo annagana yabadna loogu dari maayade ma yabadbaana loogu daraya inantu hadday xoolo doonayso hadhex timaado tolkeed baanu nay ee odhan inii soo qabqabtee hadalka runtaa laga sheego walaa Ismaaciil Cumar Geelaan haysta walaa Jabuuti baan haysata annagu waanu ogna cidana haysata kana sinaysan mayna hadalka kamanaan sinaysan jirin laakiin cidda wada ee waraaqaha qoraalka ay shaabadaysan ee dawladda Soomaaliland kamida iyo musabixi ururkan uu meesha dhigtay ee Jabuuti u shaqeeya kuwan doorna waa kuwa horta madaxweyne maanta tii waanu ka noqonnay waxaana nagu ogaataa abwaankii Faarax Nuur baa wuxuu yidhi annaga soortuna ma kaafidiyo suuga dhiinwaale sanqaraaraceeda qalbigu saakin noo yahay maanta SBI horta waxyeeladeeduna waa waxyeelana la waxyeeleeyay waxtarkeeduna waa waxtar qaran ku leeyahay oo dadka wala midna deefaanu beelaha Soomaaliland siday uga faa'iideystaan dheernahay ma jirto laakiin waxyeeladeeda la waxyeeleynayo ayaa nimbaynu jira beela badan oo dhan fartayda eeday adu nin baad sheegaysaa haddii tan ku sii socoto meeshan muusow adaa madaxweyne ka adaanu ku dooranay Jabuuti haddii nalaga xukuumadda mar hore inaad noo sheegtaan bay oo tiraahdo Jabuuti la inaga xukuumay Soomaaliland ma jirto Cismaan Geelle Faarax wuxuu ka mid yahay muqaddasaadka qarankani leeyahay ee lama taabtaanka aan cidinaba taaban karin wuxuu ka mid yahay birmageydada aan cidina hungurayn karin haddii la yiraahdo Axmed Geelle Hargeysa dhexdiisa cid ugu hanjabaysa ama cid ka qabanaysa waxaanu leenahay abwaan Cabdi Iidaan Faarax wuxuu yiri wallahi inaan udaan laga cabayn araxda jiilaalka ya wallahi inaan udaan laga cabayn araxda jiilaalka ceelka Hargeysa haradhiig buu noqon doona ceelka Hargeysa wallahi inaan udaan laga cabayn araxda jiilaalka yiri Cabdi Iidaan ceelkan Hargeysa wuxuu noqon doona haradhiig Soomaaliland iyo Axmed Cismaan Geelana waa igwal bal anaga Axmed Cismaan Geelaan ugu weynba markii Soomaaliland noqoto iyo Axmed Cismaan Geelle waa igwal way isleegiin Soomaaliland oo la waayay Axmed Cismaan Geeloon la waayo waxa nagu fudud in Soomaaliland la waayo ya wuxuu nagala weyn yahay qaranku nagala weeyo waa kurkii waa muqaddasaadka waa lama taabtaanki Makka wal Madiina ya reer waliba kabcuu leeyahay ku wareego adeeryaan kabcooyinka la iska durayn hadii kale daadeer waa la isku miyir beelayaayo waxay noqonaysaa in umulo dooxdhaco iyo calool cad marka waxaanu ka dul qaadan karanina maaha rajiimka Jabuuti ee daaqoodka hadduu Jabuuti ka helay dad ku gumaysto oo sidoo doono ka yeelo tan Hargeysa la naydaayo anagu Ingiriis iyo Axmaar iyo Talyaan iyo cid waliba way noogu timido rajiimkii aad ogeeyday afweyne bare ya ayaanu harcad u soo badheen ya ninba wuxuu yiri waqtigii qolaan walaalaanahay wada hadlaynay seer hadalkay badiyeen Ingiriiskii baa dhexdhexaadinay seer hadalkay badiyeen mar ma noo fasaxda waxaan leenahay Jabuuti dan la sheegaba Faransiisku mar mu noo fasici saacad qaliila ya waxaanu anagu qaran difaacan kara hal doorkiisa markan taa ka soo gudbo eenu soo gudbo Axmed Cismaan Geelle wuxuu yiri nin barigiina cigaal la haystay dawladda Soomaaliya lagu haystay ay haysatay la afkambigi siyaad baraafkambiye ugu xidhnaa wuxuu yiri waxa ina cigaal loola haday
caabaq nagu reebiyo cagta naga dhigiyo annaan dhammaan caasikaa noqonin horta anigu waxaan ka mid ahaa dembi in kastoo inuu wanaagsaneen in la qirto qoladii gaariga cabdiraxmaan tuur madaxtooyada ka soo qaaday baan ka mid ahaa qorina maalintii bay igu dambaysay laakiinse hadday maanta nagu qabsato meel ka fog baanu geli doonnaa taasi waa xaqiiq weeyaan caaqilnimana shaqayn mayso suldaannimana shaqayn mayso saanad la haysta iyo jabuutina shaqayn mayso annagoo qarannimada somalilan madaxtooyadeeda galloo dantaanu aan ka fushanay inaannu jabuuti gaadhno oon wax samaynaa wax dhiban nagumaaha taasaan leehay waxaana leehay madaxweyne anigu waxaan taaganay bannaanka iska taag arrinkan bannaanka iska taag mid aad ku eedowdo oo ku afxumowdo oo aanu go'aankeeda qaadanno inay noqoto inay kaa baydho oo ciddii falkaa fulisay waraaqaha foojariga ah ee la hayo ku salaysan inay noqoto labadaa qodob inay noqoto oo ciddii foojarigaa samaysay inay maxkamadda la soo jaago iyo midaad taageersantay adigood ogolaatay inay noqoto oonu kaa go'aan qaadanno annagoo tahay madaxweynahaanu dooranay ee sharafta lahaa ee karaamada lahaa ee ahaa kaanu gallaydiyo garowga soo wada cunayneenu mitirka iyo qaaxo wada joognay eenu xaqa gaara isku lahayn adigoo ah waxaanu kaa codsanaynaa inaad bannaanka istaagto inaad dadka foojarigaa sameeyey qabato ood maxkamadda joojiso iyo inaad bannaanka istaagto inaad adigu amartay aad isku caddayso marka ninka qaranka somalilan u sarreeya ee kurkaana laydhaa magacaasu matalaaye dowladda jabuutiha loo dhiibo taa waxaan u aragnaa isuboodaan u aragnaa waayo qof soomaaliya oo la dilo iyo qof soomaaliya oo la xidho waxaan ugu naxdin badnaa intii dilkeennii ka dambaysay ninka qalbi dhagax laydhaa ayaan ugu qiiro badnaa waayo nin magaca aynu wadaagno somalilan aynu ahaana magaca soomaaliga laydhaa soo gala oo gacan shisheeye loo dhiibay buu maanta ninkan qarannimada somalilan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iimaanka abubakar sidiiq iyo iimaanka saxaabada haddii laysku miisaamo iimaamka abubakar sidiiq ayaa raajac noqonaya annaga qarannimada somalilan 10,000 qof nagaga dhimatay waxaa nagaga culus inay burburto axmed cismaan geelle oo la qabto taana waxaanu ka xignaa taana waxaanu ka jirnaa sidii ay sheegeen sulaadiintii go'aan gaara inuu arab qaato inaanu go'aan gaara ka qaadanno go'aankaana haddaan yaroo kaftana ku daro muuse biixi ou reer loo kala sheekaynayo iyo qolo loo kala sheekaynayo ma nihin annagu ilaahay inta ka sokaysa inaanu somalilan leenay baanu u aragnaa maanta haddii nala farageliyana inay burburaysaanu u aragnaa waxaanu leenon kaga baxayaa taa intaasaa kaga tegaya qodob yaro kalena waan leehay waxaan qodobka kale waxa weeye arab waxaan leehay midhyar ma ku daray hayaay kuma dhaliiline talaan arab u hooseyn khalaas